waxaanu leenahay hambalyo Taha Cali ugu guuleystay horyaalka koowaad ee Sweden waa markii ugu horeysay wuxuuna joogaa koox fac weyn oo horyaalkan markasta iska gurata marka ciyaartan waxay ahayd ciyaar adag ahayd oo gurigeeda ay joogaan inay badiyaan qasab ku ahayd taageerayaasha ay haysteen ciyaarta xataa waxaa dhacday dab inuu ka kac garoonka ay kiciyaan taageerayaasha ciyaarta inaba caadi ma waxaa la istaajiyay dhowr daqiiqo ala sugaa ciyaarta in la bilaabo markale dabkii la damiyay noqotay ciyaar waxay ahayd xamaasadeeda wadato ayaa waxaa la siiyay rigoora kooxda maalmo FF goolkaas kaliya ay ciyaarta ku dhamaatay laakiinse gool kale oo laga badbaadiyay Taha Cali ayaa jira oo ciyaarta xamaasadeeda sii kiciyay inaba caadi ma ahayn Taha Cali wuxuu ciyaaray ciyaarta ilaa 85 daqiiqo caadi ma ahayn meel kasta uu ka ciyaaray orodka difaacashada weerarka wax kasta uu ka qayb qaatay ciyaarta marka inaba caadi ma ahayn Taha Cali wuxuu ka ciyaari doonaa Champions League maadaama kooxdiisa ay ku guuleystay heerka koowaad ee Sweden Israel ay gali doontaa kooxda hore ka bacdina si toos ah ay u soo aadi doontaa kooxaha yar yar ay u bixi doontaa marka kooxdan badanaa way soo gashaa Champions League wayna ka ciyaartaa markii horyaalka qaado kooxaha yar lagu soo aadiyaa way ka soo baxdaa waxayna ciyaartaa Champions League gruubo weyn lagu aadiyaa sida Chelsea Barcelona kooxaha badanaa ay imaadaan Sweden si uu baxaan kooxdan oo kamid ah kooxaha ugu waaweyn Scandinavian-ka inaba caadi maaha marka Taha Cali ma arki doona Champions League iyo waxdariisa kooxaha waaweyn ayaa arki doona markaas oo qaado doona